كيغو قلومتي قبيلي يورير متي أو كيغو قلومتي قبيلي يورير بسم الله الرحمن الرحيم أرر أفكا waxaa la qoray iyadoon aqoon fiican loo lahayn oo aan xataa lagu samayn daraasad sababatan irbayay oo qasbayay baa jiray oo aan qora ahaan ka garaabay fara badan baa jiray oo afraad iyo qolooyin ku loolamaya kuwan oo dhaliyay muran daba dheeraaday faruhu waa gaadhayeen ilaa 8 ama 9 laakiin ugu mudnaayeen carabi laatiin cusmaaniya buursiya qadariya iyo waxlamida farahan qaar baa ka horeeyay xorriyadda 1960 ilaa 1960 baa loolan xoogeystay oo qaybiyay hay'adihii dowladda iyo shacabka oo koox kasta ku adkaysatay intooda la qaato sidaas awgeed oo fashil dhacay kacaankii baa mar kale la holiyay in la qoro farta loolankii baa mar kale soo laba kacleeyay oo xoogeystay iyadoo halkaas la marayo ayaa wafdi Soomaaliyeed booqday Shiinaha oo lala kulansiiyay hogaamiyey Mao Zedong kan oo loo sii tibaaxay in la qorayo af Soomaaliya ayaa weydiiyey wafdiga farta afka lagu qorayo sidan oo ku cad kitaabka taariikhda xoogaalnimo ee marxuum Shah Maxamed Qaalib ee 2019 wafdigii baa kala qaad ku dhacay oo waa u jawaabi kari waayay uu gartay in kaliya Maxamed Siyaad Barre hogaamiyaha ka jawaabi kari su'aasha markaas uu tala ka dhiibtay oo yiri afkayaga oo qornaa dhowr kun oo sano haddaan awoodo farta laatiinka ayaan ku qori lahaa maanta waayo waa sahlan tahay oo waa casri la jaan qaadi karta adduunkan maanta waftigii baa markuu soo noqday kaga warbixiyey shir golo kacaan dhacdadan iyo talada Mao Zedong Maxamed Siyaad baa la dhacay arrinkan oo sidaas awgeed ku dhiiraday in la qaato farta laatiinka oo diyaar ahayd ka mid ahayd farihii loolanka ku jiray degdeg baa lagu qaatay talada ma sax baa taasi ahayd mise qalad aniga sax bay lahayd waayo marka koowaad wax Soomaalidu isku raaci lahayd ma jirin haba yaraatee koox kasta tooda la qumaay waana tabtaas wax kastoo masiiri ah ilaa maanta waa inaga maanta 30 sano kadib burburkii dowladda dhexe weli dhisi karta xukuumad marka xigta baahi degdeg ah ayaa loo qabay afka hay'adaha dowladda iyo shaqaalahooda ayaa maamul ahaan isla jaan qaadi kari waayay oo qaar ku shaqeynaya Talyaani qaarna Ingiriisi runtii qoraalkiisa waa laga gudbay caqabada ugu dambeyn haddii aan la qori lahayn afka farta 1920 baaba waxa noqon lahaa oo waxa ku xidhiidhsan lahaa dalka afafka qalaad carabi Ingiriisi Talyaani Amhari Soomaali irka xeer loogu wadi lahaa runtu waa sidaas كيغو قلومتي قبيلي يورير متي أو كيغو قلومتي قبيلي يورير متي وكار كله ما تيرو